wasiirka xafiiska ka hortagga iyo diyaar garowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Daahir ayaa sheegay in dadkii ka yimid roobabka mihigaanka ee ka daajijigayna waaxigeeda uu xalay saqbarkii habeenimo ku fatahay xaafadaha ku yaala harraha toga dhaxmara magaalada Jijiga isla markaana uu gaarsiiyay bulshada khasaaro dhimasho iyo dhaawac maadaama dadku soo rogmaday xilli dadku ay hurdeen wasiirka xafiiska ayaa xuseen dhimashadu ay tahay 23 qof oo 15 kamid ah meydkooda la helay 8 kalena meydkooda la baadi goobayo dhaawacuna uu yahay 84 qof dhanka guryaha maruu ka waramayay ayaa waxa uu sheegay in 262 guri uu daad kula tagay halka 411 gurina biyuhu ay galeen daadkan ayaa waxay la tageen 5 gaari sidoo kalena waxay waxyeelo gaarsiiyeen dugsiga sare ee Sheekh Cabdisalaan marka horeysa waxaan ka tacsi uga darayaa dhammaan dadkii ay dhibaatadu xalay ka soo gaadhay waxyeeladu ee dhimashada iyo dhaawaca iyo burburkuba ay ka soo gaadheen biyihii xalay ka yimid waqooyi magaalada Jigjiga biyahaasoo aad iyo aad xawligooda u badnaa dhibaatooyin fara badan magaalada Jigjiga u geystay marka horeysa dadkaas ayaan ka tacseenaynaa waxaan leenahay samiri iimaan Allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun balana dhibaatadu waxay ka timid qoy magaalada Jigjiga ayaa biyo badan baa ka yimid ilaa iyo hadda dadka dhimashadu waa 23 qof 15 qof meydkoodii waa la helay 8 qofna meydkoodii lama hayo waxa ku dhaawacmay 84 ruux waxa la badbaadiyay 1226 ruux ciidamada liibi booliska ay badbaadiyeen 411 guri dhibaatooyinka guryuhu ay gudihu u galeen ay wax alaala waxay ku cunayeen waxay ku seexanayeen iyo albaabadii ay ka burburiyeen way 262 guri dhulka ayaa la sameeyay biyuhu waxa kale inta dheer adeegyada kale ee baabuurta 5 baabuur ayuu la tagay 5 baabuur ayuu la tagay oo adeeg kale tagay dugsigii sare Sheekh Cabdisalaan masaajidada meelihii adeegyada guud ee danta guud la wada lahaa burbur badan baa soo gaadhay marka waxyeeladu ma yara iyadoo ilaa iyo haddana la wada xaqiiqada dhabta ee maaragtay daraasaadka la soo saari doono ciidanka liibi booliska oo isla xilligii la ogaaday inuu dad xadaafi ku soo rogmaday toga dhaxmara magaalada Jijiga bilaabay gurmadka samata bixinta dadka iyo hantida ayaa waxay badbaadiyeen 1220 qof iyo waliba hanti badan isla markaana ciidanka liibi booliska gurmadka ku jiray 14 kamid ah ayuu dhaawac ka soo gaaray badbaadinta shacabka oo ahayd hawl culus maadaama dadku soo rogmaday labadii habeenimo oo ay xilli dadku ay hurdeen mudane Maxamed Daahir ayaa intaa ku daray in xukuumaddu ay u asaastay guddi heer deegaan ah oo hawshan loo xil saaray sidoo kale dadka waxyeeladu ka soo gaadhay toga soo fatahay ay dawladdu gargaar gaarsiisay lana sii wadayo waxaana tilmaamay wasiirku in la wado sidii looga feejignaan lahaa khasaaraha noocan ee sida lama filaanka ku yimaada dawladduna waxay asaastay guddiyo ka taxadara waxyeelada dambe ee soo socota sidii looga taxadari lahaa sida biyaha laga mooso dadka oo laga raro meelaha biyaha u dhow iyo maaragtay response sidii loogu bixin lahaa jawaab celin sidii loogu bixin lahaa dadaal badan ayaa la wada dhaawaca oo 84 ruuxna isbitaalka ayaa la tacaalaya oo meel fiican ay marayaan bulshadii uu ciidanka liibi boolisku ka badbaadiyay daadadka ayaa sheegay in ciidanka liibi boolisku uu muujiyay dadaal dheeriya taasoo keentay in la badbaadiyo dad ka badan 1200 qof isla markaana uu ciidanku hantidoodii iyo naftoodiiba u badbaadiyay gurmadka ciidankuna uu horseeday inaanay sii badin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadkii dhaawacu ka soo gaaray daadka lama filaanka ay ku soo rogmaday roobabka mihigaanka ee ka daajijigayna waaxigeeda ayaa waxa lagu daweynayaa cusbitaalka Karamardha